السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب دمانتين سيتين في عنتين أخبارتين أنا وافي عنها إذا كانوا حارجين دمانتين أنا بتقبتين صدود ولا لهيك قالقة ما أنتو حنو هايا زيت المعجزة سليد عجيب زيت 8 أعشاب أما إن سليد أو مداوات سليد داني تدوحي علاج أتاي أصحابتا إن تمها ماشي إكسو بحيان أو هوسي أي داو أتاي داويسا هدي تمها تساقط أي ليهين أو هوس إكسو جوجو آيان أما إيكا جيجبايان sidoo kale haddii timaha aflaaqa ay leeyihiin ay ku bixeenin ay daciif ka yihiin oo qafiif ay ka yihiin sidoo kale haddii aan leedahay agool iyo cuncun iyo nabraha yaro madaxa galo infection haddii aan ku leedahay madaxa waxaasoo dhan daawi u tahay saliidan timahana way dheereynaysaa way xoojinaysaa quwada u yeelaysaa way badinaysaa maasha allah tabaarakallah waxaan ka sameynaya waxa waaye 8 acshaab ama waxaan ka sameynayaa 8 shay oo yacni cilaaj u ah timaha سليدة مركز أصحابته علاج نواية في نفس الوقت وحواي سليد أو تمها بحنايسو يعني سليد وحواي تمها وحا قصير دن وفيعن أو تمها بحنايسو بدينايسو ديرينايسو ما شاء الله تبارك الله آد وفيعن مركب حايد ليا كفائدة استسمست إن شاء الله آدي أذا وذهي لدونتين سليد عصب نواي سليد دانيتود أو هاد عصب يعني وحال لها زيت 8 أعشاب سليد دان مركب وحا أقول لي إن إذن كفائدة أصحابتي الغالية وحايد ليا كفائدة إن شاء الله آدي أذا وذا مهدسنتهين فيديو انت ugu dagalin marka hore waxaan ku codsanayaa videoga inaad like no sartiin oo like ta hilmaamina hadii aan ugu cusubtaa marka ugu horeysa aan soo booqatan waan ku soo dhaweynaya ahlan wa sahlan ku soo dhaw channelkaaga waaye ku soo dhaw gacmo furan channelka subscribe ka taabo gambaleelka furo si videoyaasha cusub markii aan soo gelino si toos ah kugu soo dhacaan insha Allah soo dhawaad marka walaalahayga qaaliga waatana asxaabta alaabtan u baahanahay oo saliideena aan ka sameysanayno waxa waaye 8 acshaab ama 8 oo mudaawaad oo timaha cilaaj u timaha noo bixinayaan oo noo badinayaan caafimaadna ay ka helayaan marka soo dhawaada asxaabta marka hore baaquli waxaan ku soo shubanaynaa rosemary-gan asxaabta dhamaantiin waa wada naqaana ma sha Allah isbareegiisa hore u soo sameeyay saliidiisa soo sameeyay timaha cilaaj u yahay waana bixiyaa timaha waa dheereeyaa waliba si degdeg ku dheereeyaa wuxuu socodsiiyaa xididada dhiigga yani oo madaxa oo socodsiinaya xididada dhiigga marka ay socdaan ay si fiican u socdaan timaha waa soo baxayaan wuxuu kale u fiican yahay infectionka madaxa ku dhaco ما شاء الله روزميريga علاج way asxaabta timahana si degdeg ah ku soo bixiya rosemary marka waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado oo weyn oo rosemary yani alaabta oo dhan waxaan ka wada isticmaalaynaa hal qaado laakiin qaadada isticmaalay asxaabta qaadada weyn ma aha oo qaadada cuntada ma u dhiganta yani kastoo ay ka yar tahay marka halka qaado markii aan ku shubno wax yar oo kale u ziyaadinayna insha Allah waxa kale meeshan ku haysanaa xabrashaad marka bil carabi waaye Soomaali waxa lagu dhahaa shanfax إذا waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado weyn oo shanfax shanfaxda iyadana cilaaj waaye waxay u fiican tahay timaha aadka u go'o salxaha bidaarta timaha waa qoynaysaa qaleelkay ka ilaalinaysaa way ratibaysaa waxay siinaysaa dhalaal iyo nacuuma timahana si degdeg ay ku dheeraysaa ma sha Allah waxaa kaloo isticmaalaynaa asxaabta qasilkan waxaan ka isticmaalaynaa qiyaastii hal qaado weyn qasilkan isticmaalaynaa waxa waaye asxaabta caleenta qasilka waaye هر waxaan soo wada aragnay qasilka oo shiidan daa'iman waxaan aragnaa oo isticmaalnaa qasilka asaga oo shiidan laakiin qasilka maanta isticmaalayna waxa waaye caleentiisa waaye qasilka asna waxa waaye macruuf waaye ma sha Allah anaka Soomaali hadii aan nahay aad u naqaana aad u isticmaalnaa timaha waa bixiya waa dheereeya quwo siya ma sha Allah waa badiya aad u badiya timaha waxa kale u baahanahay asxaabta flaxseed kan waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado weyn flaxseedka asagana timaha go'aaya cilaaj u yahay timaha xoog u yeela aflaaqada oo ka ilaaliya jileec oo ka dhigaya lamca siinaya idalaal waxa kale isticmaalaynaa asxaabta lavenderka asagana waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado weyn oo lavenderka asagana waxa waaye asxaabta mutahhar wuxuu u fiican yahay agoolka cuncunka infectionka madaxa galo waxaas dhan oo ka nadiifinaya oo yani oo cilaaj u yahay sidoo kale wuxuu daawo u yahay thaclaba waxa la dhahay oo madaxa galo carabta thaclaba ay dhahan laakiin Soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaani waxa way timahu aad u go'ayaan oo madaxa meel banaan lagu arkaayo waaye jiradaas madaxa gashana daawo u tahay lavenderka ma sha Allah timaha go'itaanka aad uga ilaaliya sidoo kale dhiigga socodsiinaya xididada dhiigga madaxa hadii ay si fiican u socdaan timaha ma sha Allah aad u soo baxayaan waxa kale u baahanay asxaabta aan ku soo darsanayna dhagayare wax yar oo dhagayaraha ma laga badinayo qiyaastii yani qaadada yar oo buuxina ku soo darsanayna dhagayaraha wax yar aad ma laga badinayo dhagayaraha waxa waaye ma sha Allah aad u timaha ugu fiican yahay timaha u qurxiya
saliid kastoo la sameynayo waa aragteen dhageeraha ma ka maqno sidoo kale skinka loo isticmaalaa dhageeraha ilkaha loo isticmaalaa meelo badan loo isticmaalaa laano cilaaj waayo dabiici ah dhageeraha marka timaha waa dheereynaya waa badinaya xooga u yeelaya madaxa bakteeriyada uu ka dilaya jileec uu ka dhigaya waa qoynaya faa'iid badan uu leeyahay oo la soo koobi karin dhageeraha marka dhageeraha in laga badiyo laakiin ma fiicno markii lagu darsanayo wax walba loo isticmaalayo dhageeraha in laga badiyo ma ahan wax yar in lagu daraa fiican ka wax yar aan kusoo darsano oo dhageera ah kan toddobaad aan kusoo darsanayna asxaabta waxa waaye xabad soodada iyadana waxaan kusoo darsanaynaa hal qaado oo weyn xabad soodada maasha Allah waxay leedahay fitamiinaad badan iyo borotiin timaha iyadana cilaaj ay u tahay waxay ka hortag u tahay cirada oo soo degdegto timaha quwaday siinaysaa way badinaysaa sidoo kale timaha way bixisaa way dheeraysaa maasha Allah xabad soodada cilaaj way asagana oo dabiici ah kan sideedaad oo ugu dambeeya asxaabta waxa waaye ubaxa yarka ah way arkaysiin maasha Allah ubax yar oo qurux badan waaye oo qurxinta loo isticmaalo waxa loo isticmaalaa skinka wajiga jirka timaha sidoo kale saan camal hada saliidaha loo isticmaalaa maasha Allah asagana ubaxa saliidihiisa waxa waaye timaha dheereeyaan xididada dhiigga oo socodsiinaya xididada dhiigga oo madaxa u socodsiiya xididada dhiigga oo madaxa hadii ay socdaan si fiican u shaqeeyaan waxa waaye timaha waa soo baxayaan waliba si dhaqso ku soo baxayaan agoolkan waa u fiican yahay timaha agoolka oo ka nadiifiya sidoo kale timaha jileec oo ka dhigaya carafna waa ka dhigaya aad u carfinaya timaha acshaabta marka asxaabta isticmaalayna 8 waaye 8doodana waxa waaye baaquligan aan kusoo shubanay 8 acshaab waaye timaha maasha Allah si degdeg noogu bixinayso caafimaad ay ka helayaan marka hadda waxaan sameeynaa waa shiideena makiinada oo isticmaalaynaa waa shiideena si fiican u shiideena waxaan ka dhigaynaa powder ma ahan acshaabtii hore u isticmaali jirnay oo dhanbaleynay sida dhagayaraha iyo xulbada oo kale waxaan sameeynaa waa dhanbaleynay laakiin acshaabtan maanta isticmaalan waxaa loogu talagalay in powder laga dhigo yani oo si fiican loo shiido budo laga dhigo marka waa shiideynaa si fiican oo shiideynaa powder aan ka dhigaynaa kadibna saliideena si toos ah ugu shubaynaa insha Allah بس وهدنا أصحابته أعشابتنا أما مداوات كنا إن مركان ديارو لويهي سفيعنا وشيدنا ما شاء الله باودران كدقني دلدانا استعمالينا دلدانا كوقسنينا سليدينا إن مركا دلدا سفيعنا وصو دقني سفيعنا وصو نظيفني كدبنا وصو خلجنا سفيعنا وصو خلجنا سي سليد إن بكتيريا وقد دلانين لازم إلا خلجيو وقيان أن لوج تجن طبعا كل قد ما استعمالين وحيران كاستعمالنا لانه سليد استعمالين سليد بدن ما اهن بس waxaan ka isticmaalayna 3 qaado inta kale insha Allah waxa fideyna kadib marka dambe oo saliidaha aan rabno inaan sameysano aan isticmaali doona insha Allah ka hadda waxa uga baahanahay 3 qaado saliida isticmaalayna asxaabta waatana saliid saytuun waaye saliid saytuunkan oo isticmaalayna dhalada marka isticmaalayna dhala aad u weyn ma ahan dhala yani wasad oo dhexaad ah waaye saliida marka dhalada waa buuxinayna 3 qaado waxaan isticmaalnaa oo powder ka ah oo acshaabta iyo dhalada saliida oo buuxdo saliida marka asxaabta dhalada intee qaado waxa waaye in 2 bakeeri oo rubac dhiman meelahaas waaye waxa uu isticmaalnay 3 qaado oo powder ka oo buuxo iyo saliida oo yani 2 bakeeri aan dhameynin waaye marka qofkii rabo in oo yani saliida oo badsado oo 3 bakeeri camal oo ka dhigto waxa waaye powder ka inuu sii ziyaadiyo waaye waxay noqonaysaa markaas powder ka inuu ziyaadiyo oo 4 qaado meelahaas oo ka dhigto haddana in la qaso waayo si fiican isugu qasaynaa si fiican isku dhex gelinayna kadib waxaan isticmaalaynaa xamaam maa'i saliida si toos dabka u saarayno biyaha hoos u dhigaynaa yani kal caada sida saliidii hore u sameey jirnaa u sameeynayna insha Allah dabkana waa u gaabinaynaa aad iyo aad u gaabinaynaa dabka dab gaaban la rabaa inuu noogu karto dab gaaban oo isticmaalaynaa saliida dab badana ma u baahna laano acshaabta isticmaalayna kulligood waa soo wada shiidanay powderan ka soo dhignay yani fitamiinaadka iyo faa'iidooyinka buuxo dhan saliida si toos ay u galayaan marka wax yar leh u baahan tahay yani 10 daqiiqo meelahaas la dabka inay noo saarnaato insha Allah kadibna diyaar inoo noqonaysa saliideena waatana haddana asxaabta saliida markii dabka aan ka soo duminay ma sha Allah oo waxay soo qabowday saasay noogu soo baxday wax badan dabka ma saarnaynin yani 10 daqiiqo meelahaas dabka noo saarneeday diyaar inoo tahay markaan ma sha Allah dab badan ma u baahno laano acshaabta isticmaalayna kulligood waxay wada ahaayeen powder si fiican u soo wada shiidnay hadda marka waxaa dhiman asxaabta saliida in la duubo oo iftiinka laga qariyo kadibna doolaabka oo madbaxa ama armaajada madbaxa aan gelino ilaa adi 4 maalin 5 maalin ama isbuuc ugu badnaan inay noogu jirto maalin kasta in la ruxo si fiican loo ruxo بعد الأسبوعنا وحوي سليد الديار إنه نقنصها إن شاء الله أما حتى أفر بري والاستعمال كرا لأنه ألابتها استعمال ألاب أو شيء واي إن فيتامينات كوجرن 6 صي وقلاين سليد marka saliida afar biri kadib xataa waa la isticmaali karaa ama isbuuc hadii loo sugo ma sha Allah tabarakallah
kadibna waxay noqonaysaa saliidda in la kala miiro marka la kala miirana waxa waaye in si toos ah loo isticmaalaya insha allah isticmaalkeedana asxaabta kala caado waaye yacni isbuucii hal mar la isticmaalaya marka la isticmaalayana waxaa la rabaa timaha in laga buuxiyo in yacni madaxa hoose lagu shubo oo madaxa laga buuxiyo bacla timaha si fiican loogu qaso oo lagu masaajeeyo masaajir oo khafiif lagu masaajeeyo kadibna bac lagu xiro saacadahan waxaa lagu haynayaa ilaa adiga 4 saac 3 saac 2 saac waxaa fiican in saacada loo badiyo ilaa 4 saac hadii aad ku haysid maasha allah tabaarakallah si fiican saliidda fawaa'idkeeda iyo fitamiinaadkeeda u helaysaa insha allah kadibna biyo caadi ah ku dhaqanaysaa shampoo isticmaalaysaa shampoo ku dhaqanaysaa isbuucina hal mar in loo isticmaalo waayo halkaas mar oo isticmaashada idinku filan maasha allah haddii si toos loo wado saliidaanitood oo yacni ilaa iyo muddo yacni bil camal la wado maasha allah tabaarakallah isbedel weyn isku arki doontiin timihiin oo isbedelayaan waa idin baxayaan timo qurux badan oo caafimaad leh oo jileec ah oo badan dabcan la inno waxaan ku darnay qasilkana macruuf wuxuu ku yahay in timaha oo badiyo يعني فوائد بدنا سليدان أي لهذا فيتامينات بدنا أي لهذا بروتين أي لهذا حتى عرضي كساعدة سائني كوسود الدجن ما شاء الله تبارك الله سليد عجيب إيه ومركو حد لي أصحاب تسلق وجاده كفائدة استسمست قرين وكسمست وحكوا أركتين إن شاء الله كومنتين نوبسو قرأ آدي هذا نمهد سنتهين آدي كان مهد علينا يا للسعود كينا داوش دين وقروح ذا بدن كومنتياشين دعادي أمان ترى ومركز تأيسو قرتين جزاكم الله ألف خير إن شاء الله وحنا بلان إيه فيديو قدام بي وحنا إذا كنت خير بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.